gudoomiyaha degmada Cadaado Axmed Salaad Ibraahim oo weheliyaan xubno ka tirsan maamulka degmada ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo ururada bulshada qaarkood. Gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay shirar uga qayb galay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kuwaas oo sheegay inay ka heleen ballanqaadyo mashaariic horumarineed oo laga fulinayo magaalada Cadaado. Soomaaliya qaar kamid ah waxyaabo development ah wasaaradda hawlaha guud oo kale ayaan kala hadalnay mashaariicda dib u dhiska dalka in la soo gaarsiiyo xubin iyo xeeb gaar ahaan degmada Cadaado in wax laga qabto. Waxaan kaloo tagay magaalada Nairobi oo halkaas oo aan kula kulmay hay'adaha UN-ka in badan oo ka tirsan iyo hay'ado kale oo samafal waxaan noo soo qabsoomay shaqooyin fara badan annagoo ka warbixinay mashaariicdii hore aan u qabanay sanadka 2013 codsanayna mashaariicda sanada 2014 in degmadu ay qayb weyn ka noqoto oo mashaariicdeena loo kordhiyo. Runtii ballanqaadyo aad u fara badan ayaan soo helnay wax bilowguna waa jiraan oo horudhac ah oo ay sida in hay'adaha UN-ka programka JPLG oo kale oo isbitaalka inay qayb ku daraan noo ballanqaaday haddana ay hawshii bilaabatay. Ayagana waan la kulannay hay'adda ka shaqeeyda UN-ka u qaabilsan programyadaas waxyaabaha qarxa hay'ad leedahay UN Mine Action Service UNMAS iyaguna waxay noo ballan qaadeen inay dhawaan wax ka bilaabayaan insha Allah hawshaas aan rajaynayna inay hawshaasi ay degdegto oo ay soo dhawaato insha Allah. imaatinka gudoomiyaha degmada Cadaado Axmed Salaad Ibraahim waxa uu ku saacaday xilli dhawaan lagu wado in golaha deegaanka degmadu ay doortaan gudoomiye cusub balse Axmed Salaad oo 4 sano la soo dhaafay xilkaasi hayay ayaan ka qayb qaadanaynin doorashada soo socota. Maxamed Cabdi warbaahinta qaranka Cadaado.